خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلهي جل الله نبوكم اليوم. قرآنك وحوي بركيز على النصية. وصومالي وأسوشيال نمرود. سورة دان حوي بش النجا سعرانته. وقت هذا بلانت عن سمي سنو. كل استيك معهين. آيات طنبان كسبتي أو آيات داس إلى هاي وسورة داس من حيل إلى هاي. والعص إلهي سو وقت أما الزمن كله عرني أما عصرك. wuxuu ugu dhaaranayaa inay muhiimadda waqtigu leeyahay waqtigu value saxad waxa jiisa ku xiran marka annaga aad baan ugu dhiganaa meeshaas ma ku fiican Allah nagu reebo maanta waxaan isugu nimid barnaamij walaalkeen Abdulqaadir oo noo soo jeedinayo oo ku saabsan trawma iyo wadanka dadkeenu idil yar oo koroojo ah وترومها سوى هستا أنا والد بك دبعتك كذا هذا مهل بك كذا عالم كانوا تربية إذا كهذا كذا ووضع نبض ترومها تجعلها أنتوا حواي وحيالها نقول الجرها من أن نكور خبين حتى وحيالها داعية جواب بين الدليل ولا تشتري ونبل نبل وحامس كحلا يكون عيسو وحواي يبيكوا كينسا مركا كما شانشيني وهذا الكيس وين عم تقادر وقفص حتى فوق كنت لقلبي لا ايش تبغى كوسو قال ده واحد عم تلقى ده ممكن نوع ما برنامج كان سوودي إلا 2000 توجي بلغمات كيسي وحايبونا كان وحوها وحنكملها دتكي كقيب علي أو داوعية دتكي وحنكملها داوعية أو لسعنات مش لده markii uu dagaaladu ka dhaceen dadkii dhaawacyada iyo gurmadka ka shaqeynayay baan ka mid ahaa markaa waxaan la kulmay dad badan oo dhaawac ah oo dumar iyo carruur isugu jira oo kulligood xaaladdan troomada la tacaalaya sidaas darteed baa waxay igu magaciisaysay ama igu kasabtay inaan barnaamijkan samayno meeshii ugu horreyso aan ka bilownay waxay ahayd inaan 5 dhakhtar oo لاسعانود إسبتالك وين إسبتالك منها كشقينية إن ترينين وصمينا فيست إيه سيكسوسرز تروما هيلينج إن وصمينا تروما فيست إيه إن وصمينا كدبنا أي نقدان كدبنا أي هالكاس برنامج كي كودان أو أي يجونا سمينا دبعتها الصومالية كتشرت وحوية دبعتها الصومالية كتشرت وحوية رنتي محايد إيشك markii qof la arkaba horaa silsilad looga dhajinaya qofkii lama siinayo dadkii fursad ma trauma qabaa ma anxiety buu qabaa ma depression buu qabaa wax yar asagoo qabaa hal mar baaba qofkii lasoo waday silsiladaa guryaha yaal markaan meelay ka yimaadeen xaaladaas markaan arkay ayaan waxaan sameeyey xaruntu runtii dee sawiradii iyo wixii nooma samaynayso maxay ahayd ii sheeg muhiimadda ugu horeysay oo xaruntaan markii hore u sameynay reconciliation bay ahayd laakiinse waxaan arkay inaan reconciliation iyo nabadayn dhici karin haddaan trauma healing dadka loo samayn dadkuna majority-ga inay trauma qabaan waxa weeye waxaan markii laascaanood xaaladeedii ay hagaagtay waxaan sameynay inaan mudug u wareegno maadaama ay mudug tahay meesha keliya oo 30 sano lasoo dhaafay ay weli civil war ka jiro saad ugu socdo civil war-kii Soomaaliya inteedii kale waa ka dhamaaday laakiin dagaalkii qalbeedka oo revenge-ga ahaa weli wuxuu si toos ah u socdaa magaalada Galkacyo ama gobolka Mudug markaas waxaan sameynay nin la dhaho xasan bidaar oo Sweden degan waxaan keenay nin la dhaho Dr. Imam Ashafa iyo Pastor James oo niman caan ah oo Kandu meesha waddanka Nigeria waa labadii nin oo nabadaynta ka sameeyay ninkii ninkaas hataa Nobel Peace buu markuu guuleysan gaaray baan Galkacyo keenay waxaan u sameynay inuu la kulmo oo la hadlo dadka jaamacadaha laba jaamacadood oo dhanka galmudug ah iyo dhanka puntland wuxuu kaloo la hadlay oo aad ula hadlay isbitaaladii
iyo maxay ahayd ii sheeg wuxuu aada ula hadlay iyo dhakhaatiirtii maxay ahayd ii sheeg inuu la hadlo maxay ahayd dhalinyarada wuxuu u sameeyey dhalinyaro ka badan 100 ayuu wuxuu u sameeyey training oo maxay ahayd ii sheeg hadday noqoto traumada iyo hadday noqoto nabadda single peace building loo sameyn barnaamijkaas almost 1500 oo qof baa ka faa'iidaysatay oo wuxuu ahaa barnaamij aada successful ah kadib markii uu barnaamijkaas uu noo hagaagay wuxuu kaleeto sameeyey xataa inuu labada maamul aan isugu keenno hal meel guddoomiye goboleedyada labada ay ka hadlaan barnaamij weyn oo ah sidii gaalkacyo ay u noqon tahay center of East Africa Peace Dialogue meel nabadda looga ololeeyo oo xarun weyn oo center in la sameeyo sidoo kaleeto wuxuu ballan qaaday inuu waxaa jira 224 wadan magaalo wadan oo la dhaho leh city of transition magaalooyinka ku jira xaaladaas nabad la-aanta oo ka gudbaya hadda barnaamijyadii dowladda labada dowladood baan ka rabnay iyaguna ma aysan saan rabnay inooga hagaagin laakiin aan maxay sheeg aan fulino barnaamijkaas marka gaalkacyo markaan nimid mar labaad anigii baa kusoo noqday waxaan u sameeyey 3 barnaamij oo waaweyn baa ka sameeyey barnaamijka koowaad wuxuu ahaa inaan 7 hosbitaal oo 2 galmudug ku taalo 5 dhanka ku taalo inaan u sameyno understanding of trauma say u fahmaan first aid trauma oo qofku marka uu yimaado meesha ay xaaladiisa u ogaadaan hadday trauma tahay haddii ay traumada tahay traumada bil keliya bay soconaysaa oo markaas waxaa loo soo marayay physiotherapy alsonia wax la dhaho therapy waxaasaa loo sameynayaa hadduu markaa ka gudbo baa mental healthiga loo gudbinaya dhankaan u gudbinaynaa barnaamijkii ugu horreeyo aan markaan kadib aan soo noqday aan sameeyay gaalkacyo wuxuu ahaa inaan sameynay 8 dhalinyara aan u train garaynay 3 magaalo oo ay dagaaladu aad uga jiraan 3daa magaalood waxaa ka mid ahaa galgabob gaalkacyo tawfiiq iyo xero jaal 3daas magaalo bay dhalinyaradaas ka socdeen marka dhalinyaradaas waxaan u sameynay training field ah oo maxay ahayd trauma healing first aid-ka ah psychosocial trauma all of them baan u sameynay barnaamijkii way noqdeen hadda sawiradoodii iyo barnaamijkii oo dhan baa halkaan ku jiraan laakiinse runtii facility-ga baan noo hagaajinahay hadda markaas kadib waxaan rabnaa inaan u sameyno aan dhex galno barnaamijkii trauma waxa weeye markii laga hadlayo waxa weeye waa trauma refers deeply distressing and disturbing experience that overwhelming person ability to cope traumada marka laga hadlayo waa xaalad adag oo qofku uu gabo sidii uu naftiisa maxay ahayd isheeg uga xalin lahaa arrintaas it affected how people think, feel, behave and relate to others 3daas calaamadood bay gelaysaa oo qofka fikirkiisii bay bedelaysaa once ay fikirka bedeshana qofka dareenkiisiiba bedelaysaa dareenka markay bedeshana dabeecaddii qofka ayaa bedelmaysa markay dabeecaddu bedelmaysaan waxaa qaldamaya xiriirkii uu la lahaa dadka oo dhan baa qaldamaya waxyaabaha keena waxaa ka mid ah violentiga ka mid ah waxaa ka mid ah conflictiga dagaalada ka mid ah serious injury inuu qofka ku dhaco baa ka mid ah waxyaabaha traumada ku dhaco loss of love inuu dhumiyo oo familkiisa qof ka mid ah displacement inay ku dhacdo iyo insecurity inay securitygiisi iyo xaaladiisii ay khaldanto 4taas nooc baa ugu muhiimsan when trauma occurs the brain how trauma affected the brain and the body sidee bay traumadu ay u affecti garaysaa jirka iyo qofka maskaxdiisa
when trauma occurs, the brain activates an automatic survival response: fight, flight, and froze. Traumada markii qofku ay ku dhacdo, maskaxdii baa qasab waxay response bay samaynaysaa, taasoo ay qofka ay gelinayso xaalad adag oo emergency ah. xaaladaasoo ah fight, inuu fight mode uu galo, ama flight mode inuu galo, ama freeze mode inuu galo, ama mid afraad oo jirto frown oo dhahaa jirta. afartaas nooc buu galayaa. fightka markuu ku jiro wuxuu sameynayaa anger, wuxuu sameynayaa aggressions, inuu dadkii la dagaalamo oo ka gardaraysto. irritation inuu sameeyo, inuu qofkii irritation ku sameeyo. flightka marka uu joogo, flightka wuxuu galayaa avoidance, dadkii oo dhan buu ka fogaanayaa, escape ka sameynayaa. isolation, xaalad isolation uu galayaa oo inuusan telefonkii qaban, socialkii waxyaabihii uu samayn jiro o dhan ama xiriiradii oo dhan buu ka guurayaa, wuxuu noqonayaa qof isolated. ama freeze inuu galo, xaaladda freezeka markuu qofku ku jiro numbness buu galayaa, dareen la-aan. disconnection buu noqonayaa oo dadkii oo dhan dadkoo dhan inuu society ka dhexo, inabilities to act, inuu asaga laftigiisa xataa uu iskeergareeyo oo noloshiisii iyo ama uu gubaysanayo ama waxaasoo dhan buu ka baxaya. traumadu marka waxyaabaha waxaa jira 3 type of trauma jirta oo qofka ay gasho. 3 calaamadood waxaa ka mid ah acute. midka acute-ka waa midka oo ugu horeeya ama xaaladda ugu horeysa uu galayo. that caused by sudden shock or life-threatening event such as accident, attack, or natural disaster. xaaladda acute-ka markuu ku jiro waxaa keena 4 nooc: inuu xaalad shooka galo, ama threatening events, taasoo naftiisii gelinaysa, ama accident inuu ku dhaco, ama inuu natural disaster. 4taas nooc baa keenaya. tan labaad waxaa la dhahaa chronic. chronic trauma waxa weeye results from long-term exposure of distressing situation like ongoing conflict, domestic violence, or repeated abuse. 3taas nooc baa iyadana keenaya in uu xaalad adag oo distressina ama walaac leh ay la soo darsto, taas ama ay jirto ongoing violence, dagaal socda. saa la socotin meesha gaalkacay la dhaho, dagaal ma socdo, laakiinse waxaa socda civil war baa socda, taas oo markasta qofki galaya oo markasta uu qofku dhegihiisa maqlayo xaalad adag. hadda shalay oo kaleeto gabar baa saas oo kale la dilay, berri waxaa la dilayaa qof kale. xaaladahaas ku dhacaya traumada markii la sheegayo waxaa la dhahaa trauma waxaa la dhahaa was something happen inside you as a result of what happened. waa wax kugu dhacay adiga gudahaaga ku dhacay, taasoo ay keentay wax dhacay hortaada ku dhacay. waxay noqon kartaa qof la dilay, waxay noqon kartaa war lagu sheegay, waxyaabo badan. marka hadda arrintaas dhegahaas aan maqlan anaga laftigeena way nagu keenaysaa. traumada saad la socotid waa active iyo inactive, kulligan jirkeena waa ku jirtaa iyadoo inactive. marka waxaa activate garaynaya waa waxa aan maqlay. qaybtii labaad baan u tagaynaa oo loo chronic. chronic waxa weeye resulted from long-term exposure of distressing situation. taas waa sheegnay. complexka waa midda saddexaad, waa involved multiple traumatic experiences over the time, often begin in early life and influencing many areas of function. tan waxa weeye waa complex weeye, badanaana waxay dhacdaa caruurtoo kaleeto in ilmaha caruurta marka familkooda abuse gareeyaan ama dadka ay la nool abuse gareeyaan oo long term ku socoto, hadhowna ay la weynaadaan oo barnaamijkaas la weynaadaan. waxayna kusoo baxdaa badanaa markii ay weynaadaan ay soo baxdaa wax kaleeto ay markaasi soo baxdaan. okay, waxaan hadda baranaynaa different kind of trauma. traumada noocyo badan baa jira oo trauma. waxaa jirta wax la dhaho development trauma. development traumas waxay ka timaadaa
from harmful, neglected experiences during the childhood that interferes with normal growth and emotional development. Carruurta oo kaleeto markay traumada ku dhacdo waa wax uu la weynaanayo oo taasna waxay keenaysaa in aan la dayacay marka uu yaraa in xaalad adag uu la kulmay oo emotionkiisii iyo dareenkiisii dib badan u geysatay. waxaa jirta mid kaleeto la dhaho collective trauma. Collective trauma waxaa la dhahaa affects entire communities following the events such as war, displacement and large scale violence. Collective traumadu waxa weeye waa wixii ka dhacay Soomaaliya si warwarkii dagaal baa dhacay, dagaalkaas dadkii oo dhan buu community-gii oo dhan buu effect gareeyay. marka community-gii effect gareeyay hadda qof kasta meeshiisa ay ugu imaanaysaa oo ay gaaraysaa. waxaa jirta midda ugu daran oo Soomaalida oo dhan ay wada qabto intergenerational trauma baa la dhahaa. Intergenerational trauma waxa weeye awoogii baa wuxuu u sheegayaa wiilkiisii, kuu dhalay baa wiilkiisii u sheegaya. sababta revenge-ga iyo dagaaladu ay u dhacaana waa taas darteeda. waxaynu la noolnahay xaalad dhacday 300 sano ka hor. awoogaa dilay, reer hebel baa ninkaa kaa dilay, waxaasa carruurtii lagu korinayaa. awoogii baa baasha dilay, wiilkiisii buu sheegay, wiilkiisiina wuxuu u soo sheegay wiilkiisii kale. marka cycle of violence-ga ama revenge-gii saasuu ku soconaya. mid kalaa jirta oo la dhaho structural trauma. Structural trauma waxa weeye waa dadka aan la midabtakooro oo oo midabtakoorka lagu sameeyo sida qabiilada aan midabtakooro. dadna la mida innaga walaalaheena baa waxaan dhahnaa waa reer hebelka oo muslimiinka waxaasuu la noolaanaya. xaaladaas uu la noolyaa waxaa u dheer inuu structurally uusan dadkii la sinnayn, uusan fursadihii ay dadkii haystaan uusan haysan, madaxdii inaysan ka midnayn, decision-kii asaga lagu go'aamiyey inuusan waxba ku go'aaminayn. marka structural traumadaasuu la nool yahay oo mar kasta ah mid ah in society-gii stigma ay ka jirto oo laga soocay, iyo mid ah inuusan fursadihii haysan. marka saasuu ula noolaanaya. mid kalaa jirta oo participatory trauma la dhaho oo aad u jirta. participatory trauma waxaa laga wadaa qofkii dadka traumatada u geystay oo dilay laftigiisii bay ku dhacaysaa. marka hal wax samaysid adiga waxay kuu soo diraysaa 20 falaarood bay gadaal kugu soo diraysaa. xaaladii aad la noolad dhibtii aad geysatay, dadkii aad laysay, wixii aad geysatay laftigoodii baa gadaal kugu soo noqonaya. markaasay adiga laftigaadi waxay kugu dhalinaysaa inaad traumatized noqotay. medical trauma jirta oo related to serial illness or injury or unsafe medical procedure markuu dhaco. psychosocial stress weyn uu dhaco, taas laftigeena waa jirta. tan kale waxaa la dhahaa displacement trauma. displacement trauma occurs when individual or families are forced to flee their homes, lost safety and community identity. inay markay doonayaan oo dadka inta displacement lagu sameeyo. taas waa mid ka dhacda markasta gaalkacyo. markuu dagaal dhaco hadba qabiil baa baxa, qabiilkaana wax dilay wuu baxaya, magaaladu ka baxaya, tuuladu tegaya, ilmihiisi waa in la guraa. ilmihii marka waxaa ku dhacaysa iskool la-aan, waxaa ku dhacaya identity la-aan because ma haysto saaxiib joogtaa oo iskuulka oo la dhigto oo la koro. innagu markaan iskoolka dhiganayna saa oo la socotid saaxiib baan kala duwan oo joogtaa. identity baan identity reer gaalkacyooda marka anagu gaalkacyo joognaa jirta, identity reer xamaraa jiri jirta. identity-gaas marka waa dhumaysaa sababtoo ah ninkii marna tawfiiq buu joogaa, marna wuxuu joogaa bacadweyn buu cararayaa, marna wuxuu cararayaa galdogob, marna wuxuu cararayaa saxdheer, marna wuxuu cararayaa magaalo kale. dagaalada dhacaya laftigooda dartood. marka waxaa jirta mid kaleeto aad muhiim u ah secondary trauma la dhaho. secondary trauma waxay ku dhacdaa dadka caawiya oo traumada ka shaqeeya ama isbitaalada ka shaqeeya way ku dhacdaa. counselor-ka xataa way ku dhacdaa, dadka counseling-ka sameeya. repeated exposure of trauma of others bay ku timaadaa. traumooyinku marka noocyooyinka kala duwan bay leeyihiin. noocyooyinkaas marka baa waxay noo sameynayaan sheeg baa dadka effect gareynaya. hadda waxaan u galaynaa symptoms of in adults.
dadka adultiga sida calaamadahooda lagu garto waa persistent feeling of fears cabsi joogta inuu qofku dareemayo sadness iyo walwal anger sleep problems inuusan hurdadii helahayn including nightmares inuu habeenkii riyo xun iyo uu helayo insomnia hurdo la-aan flashbacks inay mararka qaarkood wixii uu arkay ama wixii uu ku riyooday ama wixii agtiisa ka dhacay ay habeenkii kusoo noqnoqonayaan unwanted memory oo kaleeto uu helayo of the event oo agtiisa ka dhacay difficult concentrating inuusan concentrationkiisu uu aada u qaldan yahay uusan waxba concentrate garayn karin hadday waxbarashada iyo decision makingkiisa waxyaabaha ku dhacaya tan kaleeto waxaa weeye withdrawal from families and friends and social activities inuu qofku dadkii oo dhan ka dhex baxo usan telefonka qabanahayn uusan ka jawaabayn increased use of alcoholic markii uu problemkaas u bato oo qofka traumadaas ay ku dhacdo waxaa dhacaysa inuu society ka dhex baxo oo isku dayo inuu caawimaad ka raadsho maxay ahayd isha alcohol ama chat ama waxyaabahaas maaragtay inuu dhanka galo physical complaints such as a headache or fatigue inuu physically madax xanuun iyo fatigue iyo stomach problem pain without clear medical process inuu xanuun joogtaa uu markasta dareemayo taasoo ay keenayso traumada iyadoo aan wax medical problems aysan jirin feeling hopeless inuu isagoo dhan qof hopeless noqdo rajadoo dhan ay ka baaba'do numbness inuusan dareen lahayn detached from others or all the communities oo inuu dadka ka dhex baxo caruurta oo kaleeto marka ay tahay calaamadaha ay caruurtu leeyihiin waxaa ka mid ah maxay ahayd calaamadaha caruurtu leeyihiin xoogaa baa ii dhiman joogsan xaaladda dhamaystir trauma la wada qabaa waxaan soo marnay waa u baahannahay inaan waxa tustusno laakiin sawiradii wixii baan tusinay laakiin lama dhex galo markaa shaka okay symptoms of children caruurta calaamadaha lagu garto maxaa ka mid ah change in behavior inay calaamadiisa ama dabeecadiisa ay maxay ay qarsoonto such becoming aggressive inuu noqdo ilmo xanaaq badan oo dagaal badan fearful ama cabsi badan ay ku jirto unusually quiet inuu qof noqdo ilmo yaroo isdhex gashan oo markasta quiet ah oo clinching to neighbors inuu isku laalaabo oo markasta uu tabo qofka keerka siinay sleep disturbance inay hurdadu ay problem ku qabo hurdada frequent inuu helayo maxay ahayd sheeg riyooyin xunxun ama nightmare xun difficulty paying attention in school and sudden troubles in the performance inuu iskuolkii uu ka dhex baxo oo performancegiisana ay hoos u dhacdo waxbarashadii maadaama uu wiil fiican inuu ahaabaa laga yaabaa markaan karoomada ku dhicin kadibna inay waxbarashadiisi hoos dhac weyn ay ku dhaco play that repeat traumatic events express fear inuu markasta cabsi dareemayo danger or strong fears separated from parenting caregivers waxaa inay cabsi badan inay dhacdo cabsidaasoo oo maxay ahayd ii sheeg inuu caruurtii iyo caregiverkiiba ka cararo irritation iyo markasta irritation dareemayo crying easily si sahlan inuu ilmihii isaga booynayo oo booyin ka dhacdo sudden mood change wiilkii ilmihii habi ahaa oo farxadda badnaa inuu hal mar moodkiisii isbedelo oo isku bedelo qof xanaaq badan ama qof aan dadkoo dhan ka soocan ama qof problem sheeganayo cabsi okay tan kaleeto waa aspect of mudug tribal revenge and clan fighting waxyaabaha ay dagaaladu ay keeneen mudug region especially around Galkacyo clan based revenge fighting known as colaad ama qabiil aana qabiil waxaa loo yaqaano trauma from decades traumadaas oo ka imaanayso waxyaabihii horeeto
ama sanadihii lasoo dhaafay waqtiyadii tirada badnaa waxaa ka mid ah cycle of revenge. Number 1 ee cycle of revenge. Revenge-gaasoo soo kala daawanaya markasta aana qabiil socoto. And person is killed, the victim clan often feels obliged to take. Markasta uu dagaal dhaco oo qof la dilo waxay qabiilka waajib ku noqonaysaa ama ay isku waajib yeeleen inay qofka u aaraan. Markii qofkaas loo aarana the cycle of revenge baa soconaya oo dagaalkii baa marka soconaya. Children grow in fear. Carruurtu waxay ku koraysaa cabsi, insecurity, mistrust between neighbors. Hataa dadkii dariska ahaa maadaama ay dagaalkaasi u socdo carruurtooda iyo carruurtii kale uma tegayso uma ciyaari karto waxay ka qabaan cuqdad. cuqdadaas nafsaaniga oo ilmahaas ku jiro la korayo waa cuqdada uu hadhow markuu weynaado 18 jiro oo markaas argoosashada iyo wixii ku jiray sababtoo traumadii lagama hiilgarayn lalama hadlin lalamana kulmin. trauma kaleeto jirta political trauma wax la dhaha jirta oo politiciansku ay qabaan. Traumatized politicians baa traumatizing the people. Politicianska laftigooda waad aragtay marba hadalla kasoo dhacaya le 91kii baa la noqonaya ma ilaan arsama waa trauma waxaas ya maba karsanayaan 91kii ma quraan baa la qaybshay dad baa la leeyay waxbaa dhacay waad ka dareemaysaa moogta iyaga laftigooda cudadii inay qabaan iyo depressionkii anxiety tii bay dadkii kula dhex wareegayaan oo samaynayaan. Society marka aan caafimaad qabin from top magaceedii WHO markii la fiirshay Soomaalida waxaa la yiri 33 qolkii 33 ama waa waalan yihiin bale ama trauma ay qabaan. Ya kacay markaan anigu joogo oo dhex marayo boqolkii waxaa laga wadaa moogtahay 3 qof hal baa la leeyahay anigu 2 qof waxaan aaminsanay inay trauma qabaan sababtoo qaabka ay wada hadlayaan qaabka ay sameynayaan qaabka ay reactionka u sameynayaan ama qaabka ay waa ka arkaysaa sababtaasna maxaa keenaysa waa cycle of the problemki dhacay. Problem baa qofkii ku dhacay oo tuntii qabiilka ama dagaaladu kama aysan hadhin ayadii baa mar laba kusoo doogmanaysa mid baa dhacday mid kalaa kasii tabaraa mid kale qofkii markii dambe waa buuxa hal mar buu iska qarxayaa wuxuu sameynayaa wax illogic ama aanan samayn. Okay. Many families Kalkaya has been displaced multiple times due to recurring clan clashes. Repeated displacement lead to chronic trauma, loss of identity, and economic hardship. maxay ahayd isha dadkaas familkaas markii ay problemkaas uu ku dhacay saddexdan wax baa ku dhacay. Chronic trauma baa ku dhacday, loss of identity qofkii ilmihii oo kaleeto identity uu lose gareeyay sababtoo iskuul qof joogtay oo iskuulka la dhigtay ma lahan saaxiib joogtay oo kubadda la ciyaara ma lahan magaciisa ma lahan lahaanshihii magaalada iyo gobolka oo dhan baa dhuntay sababtoo ma ahan dad wada xidhan waa dad wada dagaalamaya horumar iyo kama sheekayn karaan. Economic hardship baa dhacday sababtoo business lagama shaqaynayo marka dagaalka la oogayo waad aragtay xabadaha iyo taasoo mararka qaarkood baan markaan traumadan iyo waxaan xaruntan sameynayaan waxaan u tegay bangiyada iyo business waxaan ku yidhi social responsibility baa ina haysataa dagaal baa meesha ka jira waa doonta aad wax yar oo lacaga xarun aad u sameyn weydeen oo arrintan ma aaminsana laakiin dagaalka qabiilka markuu dhaho imsa la aruurinaya malaayiin wax lagu xallin karo 10,000 baa 4-5 milyan karta waxaana keenaya taas inaysan dadku usoo sheegin guud ahaan isbitaalada markaad ufiirsatay hay-adaha NGO-ga dowladda iyo maxay ahayd isheeg local NGOs-ka maxay ahayd mental health-ga oo dhan wax loo hayo malaha isbitaaladu integrated maaha waxaa laga yaabaa isbitaalka weyn hal qof baa jooga isbitaalada kale wax qof joogo oo trauma garan kara ama mental health ka shaqeynaya malaha saad ula socotin waddanka la dhaho Rwanda haddaan example ahaan soo qaadano markii dagaalku ka dhacay
isbitaaladii oo dhan waxaa loo dhaway trauma center. Every isbitaal trauma center is mental health unbaa laga shaqeynayay kaasus. Ruwaanda maanta markay qaybta qaadatay kala socotaa adduunka meeshay marayso. Is-afis baa dhacay, waad garanaysaa islaamkii Faadumo wiilkeeda ninkii dilay shaah u karinayay oo la joogo. Arrintaas kama imaan. Ayadii baa trauma healing loo sameeyey, wixii baa laga dhaqay. Ayadii baa marka waxay leedahay maxaa loo dilayaa kan yaan liiga dilin kii aan ugu dhintay kanaan ku shaqaysanaya. xaaladaas marka oo aan maxay ahayd haddaynu u baahannahay inaynu xaaladdaa ka baxno waxaa weeye waxaan u baahannahay inaynu helno policy guud oo dowladda ama dadku ay samaystaan. maxay ahayd isheg hay-adaha laftigooda inay usoo jeensadaan inay mental healthiga ay siiyaan qayb. markii dowladda policyga kashe primary care bay ka sheekaysaa. primary care meesha ugu muhiimsan waa mental healthiga. laakiin primary careka Soomaaliya waxaa looga yaqaanaa hooyada iyo dhallaanka iyo waxaasaa loo yaqaana. because sababtu maxay tahay hay-aduhu waxay wax ku bixinayaan wash iyo barnaamijyadaasay wax ku baxshaan. barnaamijyadii mental healthiga qofkii marka hadduusan maskaxdiiba ka maxay caafimaad qabin see caafimaadka asaasiga ah oo kaleeto ama nolosha asaasiga ah uu u fulinaya ma fulin karo sababtoo ah islaan waalani caruurteeda ma haysan karto. Yeah. Many community members, including children, have witnessed killing and destructions. Xaaladahaas markay la kulmeen such exposure cause problemkaas wuxuu koosgareeyey post-traumatic disorder inay ku dhacdo PTS, anxiety, walaac, nightmares inay dhahaan, depression inay ku dhahaan. taas waxay sababtay breakdown of trust, social cohesion. dadkii wixii ka dhaxayn jiray oo familka ahaa oo waxaa jiray dhaqan baa jiri jirtay birmageyda waxa la dhahaa jiri jirtay. markay dagaaladu dhacaan dad aan layn baa jiri jirtay oo la ilaasho waxyaaba la ilaashaa jiri jiray. red lines baa jiri jiray. wixii oo dhan way baabi'een maadaama ay maxay ahayd sheeg xaaladahan ay jiraan. conflict damage, traditional Somali structure oo tolnimadii laftigeedii buu burburiyey. sababtoo ah ilmaha laftigoodii xataa markii magta la qaadanayo 99kii soo lama rabin in la siiyo ilmaha waxaa la siiyaa 11. ilmihii markii aabihiis la dilay oo maxay ahayd sheeg boqolkiiba la siiyey maxay ahayd sheeg 10 asaga la siiyey waxaa ku dhacday economic hardship. wuxuu la soo koray dhaqaale la-aan oo aabihii breadwinnerka waa laga dilay. iskuul buu soo dhigtay wuxuu soo ciilkii waa qabaa markuu 18 jiro ninka la dilaya. markuu nin dilo maxaa ku soo aaday mataqaana $33 baa ku soo aadaysa. so it's easy waaba la fududeeyey in dadka la laayo sababtoo adiga qabiilka $38 baa bixinaysaa oo qof kasta correctors wax la dhahaa. haddaad 5 caruur wiil leedahay 5taa wiil baa $33 lagugu dhufanaya. marka taa laftigeeda sahlidda ay sahlayso in ilmaha la dilo in qofka la dilo waxaa oo magti laba dhib bay keentay. magtii oo la fududeeyey oo wixii la qaybsanayo qabiilku iyo number 2 qofkii magta lahaayo arrintii uu xalin lahaa meesha uu noloshiisa la tacaali lahaa wixii yarkahay uu xaaladiisa ku adkayna ku xalin lahaa laga qaatay oo mar kastaba recurrency sameynaya sababtoo ah lama siin maxay ahayd sheeg wuxuu xaqa u lahaa. okay waxaa jiri jiray wax la dhaho role of cultural and healing baa jiray traditional reconciliation xaalmarin waxa la dhahaa jirtay diyada oo lagu daro. Soomaalida saa ula socotid conflict transformation haddii la sheego hadda war dhowey gaaladu weligeen baan lahaan jiray. waxaa la dhihi jiray meeshii maxay ahayd sheeg dhiig ku daata xabbaa lagu daadshaa. wax jiray reerka mag baa la bixinayaa magtaa kadibna reerka wiilka lala diray gabar baa la siinayaa gabadhii wiilal bay dhalaysaa. halkaas marka waxaa ka bilaabanaya transformation cusub iyo xiriir reerkii yeeshaan oo dadkii ay xiriirkii ka duwan ay yeeshaan wixii la xaliyo la iloobo. sababtoo gabadhii baa laga yaabaa 10 wiil inay dhashay marka hal wiil oo reerkaas dilay ma xasuusanayaan.
sababta jahtoon wiil cawid baa dhacay xaalad waxaa jiri jirta waxyaabihii aan hadda sheegayo oo kaleeto in la sameeyo wax la dhaho maxaa sheeg birmagaydo dadka qaar la ilaasho oo aan odayaasha culimmada shiikha ninka reerka tolka haysta kasoo qaad qabiilkan hadda sacadka iyo magacii maxaa sheeg cumar maxamuudka 100 sano ka hor waxaa jirtay mar in la qabtay nin la dhihi jiray axmed saagil wuxuu ahaa nin oday oo dhankan kala ah 2 wiil baa qabtay marka 2 wiil waxay u geeyeen jaamac faradar nin la dhahay u geeyeen sacda ninka jaamac faradar la dhaho sacadka goortii loo keenay ninkii axmed saagil ninkaan axmed saagil baa haawiye 2 wiil marka way hadleen mid wuxuu yidhi waa dilayaa ninkaan midna wuxuu yidhi 100 sano nabadan ku bedelanaya ninkaan ya 2 wiil goortii odayga loo keenay axmed saagil taladii uu goortii u gudbiyey wuxuu sameeyey wiilkii yidhi nabadda baa 100 sano ka buu qaatay arrintaas 100 sano nabada aniga sida la ii sheegay way dhacdaaliyey ninkii axmed saagil oo dagaalyahanka ee dagaal oogaha meeshii uu tegey gabar buu bixiyey oo reerkii siiyey halkaas waxaa ka bilaabatay new page oo buuxayay marka dadkaanu dhaqan bay lahaayeen xiriir bay lahaayeen geedka hoostooda fariisan yihiin innaga qolyaheennan waxaan la nimid dhaqan cusub oo dowlad la dhaho dowladdii waxaa la rabay intay waxaan kaleeto photocopyga yurubiyaanka iyo waxaysa aan keeni lahayn horta dadkan in la waraysto ayaga laftigooda dadkan bismillaahs bay ahaayeen dadkan waxay lahaayeen dhaqan dadkan xeer bay lahaayeen waxbay lahaayeen waxooday lahayd in loo hormariyo waxoodii looma hormarin waxaa lagu imboos gareeyay wax cusub wixii cusbaa ma shaqayn hadda back to zero odayaashii baan u noqonay inay nabadda dhaliyaan marku dagaaladu dhacan ma tagaan maxay ahayd ishiga dowladuhu galmudug iyo puntland ma xalliyaan odayaal baa xalliya problem kale oo jira odayaasha laftigoodii waxay noqdeen maxay ahayd business oo maxay ahayd isheeg wixii laftigoodii say u hayeen iyaga laftigoodii waxaa ku dhacay maxay ahayd isheeg 3 waxbaa dhacay 3 waxoo dhacay waxaa weeye number 1 odayaashii experience-ga ahaa oo fiicnaa oo waxaan dacadda ay ka ahayd majority waa dhinteen waxaa haray inexperience ninkii hebel aabihiis ba ahaaba la soo fariiso nabadoon adaa aqoonti ma laha magiciisiga ma laha business bay noqotay marka xaaladda laftigeedii maxay ahayd sheeg garta marka 2 nin garabba lacag baa laga qaadaya marka xaaladii waxay noqotay xaalad business ma noqon xaalad ma rabo inaan taas kusii dheeraado laakiinse muhiimaddu waxaa weeye aan rabno maxay ahayd sheeg in conclusion aan rabno inaan xaaladdan xallino waa inaan dadkaan loo sameeyaa counseling community reconciliation weyn waa ina dhacdaa dialogue waa inu dhacaa peace education waa in dadka laftigooda nabadda la baraa oo dib maadaama odayaashii iyo maxay ahayd sheeg ay dadkii expertiga ka baxeen training loo sameeyaa oo wixii ka nool taariikhdan say wax xallin karaan gadaal la weydiiyaa trauma awareness xaaladdan traumada jirta waa in wacyigelin ballaaran loo sameeyaa dadka marka waxaa weeye faataxay iyo gacantii taagayaan anigay waa iga dhaqaaqataa waxaan u malaynayaa wixii intaa ka dambeysay su-aalaha ka imaanaysaan aad baan idinka mahadcelinaynaa daahidaan maanta soo daahnay iyo dee magaciisigii iyo technology iyo xoogaa aan nacaawin waa mahadsantiin intaasaan rabay inaan idinla wadaago aad baan idinka mahadcelinayaa dhegeysigaa